saxaabta aad baan idin salaamana halka muuqaalka filimina waa Kigali maanta waxaanu isbeen garayn doonaa ama aanu kharash garayn doonaa $10 oo Rwanda franc wuxuu dhigmaa $12 oo lacagta Rwanda halka ku arkaysaa waa 12 Rwanda franc oo lacagta Rwanda franca laakiin $10 marka waxaanu eegi doonaa nolosha Rwanda qiimaheeda waxaanu idin leenahay la socod wanaagsan waxyaabo kala duwan ayaanu meelahan ka gadan doonaa bal waxay noo geyso ayaanu eegnaa la socod wanaagsan qorraxdu aroortii qaar la soo baxdo anaad ku qarin baad umano qabadeedin nabi yuusuf quruxdii qadarkan u siiyay adna qaybi ka wadatayod qayrka ku dhaaftay iminka hadaba waxaanu samayn doonaa sidaan idin sheegnay $10 u dhigma 12 Rwanda franc ayaa nu isbeen garayn doonaa saan idin sheegnay iminka waxay koobaadaan ku bilaabanaa waa shaah waxaan dalbanaynaa African tea marka waxaan idin leenahay bal nala eega wixii naga baxay tiiga si aad idinku uga bogataan qiimaha Rwanda aad uga bogataan oo hadhow idinku wixii fahansan oo idin duubantahay aad timaadaan iminka marka qiimaha go'an ee shaahan ma garanayno laakiin hadhow markaan shaahayaga cabno ee sii socono ayaa waxaan loo keeni doonaa qiimaha shaaha markaas ayaad nala ogaan doontaan idinkuna iminka shaahayagan iska cabanaa waqtigeeda iska qaadanno iminka halkaa waxaan ku hayaa koob shaaha oo laga sameeyay timir hadda wax kale maaha timir sideedii laga sameeyay marka waxyaabaha Rwanda ay unique ku tahay ama waxyaabaha Rwanda gaarka ku tahay buu kamid yahay in shaah timir laga sameeyo marka koob qaxwa oo timir ka samaysan ayaa lagu soo hordhigaya oo cabitaan timir oo aad iyo aad ula cajabayso oo weligii horta meel kala ku arag meeshii ugu horeysay ku arkay cabitaanka timirta oo shaaha wali waqti xaadirka waxaan ku dhex jirnaa videogeygii ahaa $10 muxuu kaaga goynaya Kigali marka waxyaabo kala duwan baan ku tijaabin doonaa cuntada qiimamka lagu ciyaaro marka halka waxa lagu ciyaarayaa buulkaas oo soo eegi doonaa marka inta buulkan oo kale wuxuu kamid yahay waxyaabaha entertainment-ga Rwanda marka qoladan qofkii badiya ayaanu ku xigi doonaa waan ciyaar doonaa taasina waa mid aad ogaan doontaan qiimaheeda iminka ciyaarta ayaa geli doonaa marka ciyaarta nooca kamid ahaan doontaa waxyaabaha Rwanda aad ka ogaan doontaan marka la socod wanaagsan qiimaheeda xitaa waa idin sheegi doonaa start baashan laygama raynaya iminka waxaanu taaganahay xilli casho ah markaa meel kamida maqaayadaha Rwanda ku yaala ayaanu casho ka dalbanay waxaanu dalbanay cunto Rwandese markaa Rwandese waxa ay badanka cunaan bariis iyo jabis iyo waxyaabo kale oo soo raaco fuulku kamid yahay bal cuntadaas ayaanu anaguna tijaabin doonaa inta qiimaheedu yahay siduu dhadhankeedu yahay marka wixii maanta aanu anagu samaysan jirnay waan iska deynay maanta halkaasay ka leedahay marka nala socda idinkuna si aad u aragtaan hadhow mustaqbalka markaad Rwanda timaadaan cuntada qiimaheeda iyo waxa la gado idinkoo idea ka haysta ama fikrad ka haysta si aad u timaadaan iminka sidaad arkaysaan cuntadaanu dalbanay xaggaa waxa ku jira waa bariis intaa yar waan yaroo hilib ah kaasina waa fuul waa jabis xaggaana beans baa kaga jira marka waxaasoo dhan la isku daray iyo suugada ayaa Rwanda lagu cunaa waxyaabo kala duwan baa lagu soo dhigayaa waxyaabaha kala duwan waxay u fiican yihiin jirkaaga xagga caafimaadka dheefshiidka xagga cuntada waa inaga horeeyaan nimankani marka haddaad maalin kasta bariis ku rito caloosha ku istaagaysa marka waxaan leenahay taasaa Rwanda lagu cunaa la socod wanaagsan
iminka waqti xaadirka saarkasa cashadii waa iska dhamaysanay waxaanu bixinanaa lacagtii oo lacagtaasoo nalaga qaaday waxay ahayd 1500 Rwanda franc waxa u dhigmataa $1 marka lacag $1 casho cajiiba ku cunay oo kala kacsan marka Rwanda waa meel ilaahay nimcadeedu badan tahay marka waxaan idin leenahay Kigali yaan la moogaaneen come on to Kigali marka aad iyo aad baan idin salaamanaa iminka sida arkaysaa waxaanu dalbanay cashadii labaad iyaduna waa casho aad iyo aad u shidan oo iyadu $2 oo iyadu laba casho aad iyo aad u shidan weeyaan oo iyadu 2k Rwanda francs waxaan oo $1.5 tan waa $1.5 tii hore $1 bay ahayd marka waa casho wallahi aad